isaga waxaan ku eegi doonaa haddii ay yiraahdo oo professor Ali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii xukuumaddii ku meel gaarka ahayd oo marti noogu yahay dhinacyadii ku meel gaarka uu ka soo qabtay xilka ahda qaramaydkii iyo sida dalkan maanta loo soo gaarsiiyay dawlad aan ku meel gaar ahayn iyo dastuur dhaqan gal ah hay'ashii afti dadweyne sugaya farxad bay noo tahay mar kale inaad nala joogto intaas kadib amaan iyo dhaliil insaanka ayaa u samaysan labaduna waa mutaysatay dabcan waxaan ka rabaa ra'iisul wasaare xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ee dalkan aad ra'iisul wasaaraha ka noqotay madaxweynahana uu ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed shaqada badan aad ka qabateen qarannimadii Soomaaliya aad ku xoojiseen inaad si kooban inoogu sheegto way aragnimadaada waqtigii ku meel gaarka ah marxaladda aadka dalka aad ka soo gudbiseen waa maasan tahay horta burburkii dawladdii Soomaaliyeed kadib iyo dagaaladii sokeeye Soomaalidu ku kala irdhowday beesha caalamku wax badan ay isku dayday inay shirar dib u heshiisiinad u abaabusho ummadda Soomaaliyeed iyaduna ka qayb qaadanaysa Soomaalidu shirarkaas faraha badan leh waxaan filayaa waxaan xasuustaa ilaa 13 shir oo kii ugu roonaa oo ahaa kii ay ka dhalatay dawladda carta ee uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan dawlad baarlamaan leh oo axdi ku shaqaynaysa ay ahayd waxay soo celisay hanaankii dawladnimo bal dadku inay xasuustaan dhalinyaradii aan qaangaarka ahayn markii dawladda naga burburaysay dawlad ma arka marka kala dambeyn iyo dawlad iyo sharci in ay soo nooleysay ay ku guuleysatay ciidamadii u yeertay waxay bilowday inay hay'adihii dawliga ahay ay shaqo galaan waqtigeedii markuu dhamaadana waa tii shir lagu qabtay dalka Kenya 2002 ilaa 3 ilaa 4 ay ka dhalatay dawladdii federaalka ku meel gaarka ahayd oo iyaduna axdi qarameed federaal ah lagu heshiiyey markii baarlamaankii la dhisay oo madaxweyne la doortay nasiib ayay ii noqotay in aniga la ii soo magacaabo ra'iisul wasaarihii dawladdii federaalka ku meel gaarka ahayd anigoo midowga Afrika ka shaqeeya ka mid ahayn shirkii dhowrka sano ka socday Kenya oon aqoonin xildhibaanada iyo dadka waxaan ka garanayaa qaar ama macallimiin aan isla ahayn ama daris ahayn ama dhalinyaro wada ahayn ama ardo wada ahayn ama banooni wada ciyaar jir laakiin ma wada aqoonin waxay ugu adkay waxay ahayd dad aadan garanayn oo aadan la joogin intii shirku socday inaad ra'iisul wasaare intuu noqoto aad awood qaybsi 4.5 leeyahay xukuumad ku dhista ugu dhiban bilowga siyaasadda meesha sadana qaldaneen hadda intaan ka shaqeynaya ama mashaariicda midowga Yurub ama mashaariicda midowga Afrika kulli siyaasad way labada hay'adahaas laakiin midda Soomaaliyeed markaas xil siyaasadeed kaas ay ugu horeeyay diiwaanka waxaa ku jira oo aan hayaa laga yaabo dad badanna inaysan ku baraarugsaneyn adaana loo xaqiijin doona maanta oo shaahid cayaankii noola ah ma jirtaa in Maxamed Dheere siyaasadda ta gacanta ka soo qabtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ku keenay yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kana mudana madaxweyne maadaama xilka power sharingka dhanka uu ka imaanayay dadka aan ka dhashay Ali Maxamed Geedi ay ugu fadhiisto kursiga oo sidaas aad ku soo gashay siyaasadda Soomaaliya waa saxaya arintaas horta kursi qaran bixintiisa qof gacan ka qabto laguma bixiyo waana sharciga ama awoodda uu madaxweyne leeyahay inuu ra'iisul wasaarihiisa xusho dhinaca dad ka eegto awood qaybsi baa jiray marka kursiga ra'iisul wasaaraha waxa iska lahay oo loogu talagalay community la yiraahdo hawi anigu kamid ma ahayn xataa raggii dalbaday oo CV-da geystay goor dambe ayaa laygu baraarujiyay ma CV-ga geysatay markaan geystana waxaan kamid noqday dadkii la qiimeeyay shortlistingka lagu sameeyay kuwii ugu dambeeyay ugu yaraa aan kamid noqday marka Maxamed Dheere qaraabaan hayas Allah u naxariisto wuxuu ahay xildhibaan ra'iisul wasaarana ma noqon karin markaas sidii wixii iga dambeeyay oo dhan in baarlamaanka la furo ee ra'iisul wasaaruhu oo una xildhibaan ahayna dadaal badan waxa gelisay xukuumaddan ra'iisul wasaaraha ka ah marka nimaan xildhibaan ahayn oo wasiirna ma noqonayn ra'iisul wasaarna ma noqon karin marka Maxamed Dheere meesha aad ka soo gelin karto waa kursiga xildhibaanka
qoyska aan ka wada dhalanay ee uu ku fadhiyay inuu ugu wareejiyo si aan ra'iisul wasaare u noqdo halkaasoo ka soo geli karaa waxa kale ee la sheegayo waa qof inta qof qaacan ka qabto ra'iisul wasaare iyaga dhigma dhigi kara sharcina maaha waxaad noqotay ra'iisul wasaare xukuumadda ku meel gaarka ahayd baarlamaan kala qaybsamay baydhabo iyo kala degay mar jowhar ku sugtay inuu tago marxalad aad u adkayd oo qaybo ka mid ahna aad ku ammaanan tahay haddana dhanka kale waxa la yidhaahdaa dhaliilo fara badan iyo xukuumaddii geedi lahayd ma kuu muuqanaysaa eedeymahaas horta siyaasi inuu dhaliil leeyahay ammaan iyo dhaleecana leeyahay waa caadi qalin iyo warqadana wataa ra'iisul wasaare laga dhigay marka waxaa la qiimeeyaa qofku wuxuu qabtay oo wanaag ah iyo wixii uu ku dheelay waa la isbarbar dhigaa ilaahayba wuxuu samaystay xasanaadii sayi'aad markaasuu miisaan saaraa mugta qofku Soomaalidu waxay caado ka dhigatay waxa xun ay raadiyaan haddii 90% aad wax fiican qabato 10% ay wax ka murqacato 10% kale aadaas mugta marka anigu waxaan soo qabtay waa cad yihiin taariikhday ku qoran yihiin xukuumad aan waxba haysan oo eber ayaa la yidhi waana rabaa shacbiga Soomaaliyeed inay arkaan ama maqlaan caawa oo maanta dawlad Soomaaliyeed inay dhisanto lama jecla weli caalamku diyaar uma ahayn xilligaas sababta aan u kala jabnay ee Muqdisho xildhibaano iyo wasiiro iyo gudoomiye baarlamaanku u soo aadeen inta kalena aan jawhar u dejinay waxay ahayd ha kala jabaanay ha kala tagaan ilaa dhimata dawladdu dadaal badan aan ka galnay inayna dhiman marka dawladdu noolaato ana la kala jabiyay waana la kala celiyay sidaan isu raadsayn aakhirkii madaxweyne Cali Cabdalla Saalax ayaa isu keenay isu soo urushay labadii garab oo Muqdisho iyo jawhar kala joogay heshiiskii midowgana wuxuu dhalay inaan baydhabo ku midowno inaan dawladdu u guurto ku wada shaqeyno sanadkaas la xisaabaa horta in xukuumaddu shaqeyso oo shuruuc badan aan meel marino oo hawlo badan aan qabanno oo ciidamo iyo shaqaale dawladeed aan qornay iyo nidaam badan inaan sharciyeyno kadibna waa tii hadee maxaakim islaamiga oo dagaal nala gashay ay dalka iyaguna ay dowr ku lahaayeen wixii ka dhacay hadda isweydiimayno oo taariikhday ku qoran yihiin marka aakhirkii dawladdu waxay ku guuleysatay inaan kursigii Soomaaliya looga talinayo villa Soomaaliya soo dhigo intaas waa intii horta aan soo qabanay wixii dhaliil ah iyo wixii leeyahay dhaliil karo dadkan u deynaya laakiin anigu inaan dhaliilahay waa dhici karta beesha caalamka ma ogolaan in Soomaaliya ay dhisanto oo ay idin kala qaybinayo beesha caalamka way balaaran tahay qaramada midoobay waxa xubno ka ah dunida oo idil Soomaaliya ay ka mid tahay yaadna dhihi kartaa wadan koow iyo labo ayaa xilligaasi caqabado ugu badan Soomaaliya ay kala kulmayso waxa horta dawlad ina ayadee ma rabo qaramada midoobana ma rabo inaan waxaan ka rabana waa inaad dawlad magacaawdo aniga dawlad aan dhahayo dawlad hebel aad diidaneed ma jirto laakiin taariikhda haddaad raacdaan oo taxliil samaysaan waa helaysaan baarlamaankii Soomaaliya ee Nairobi lagu dhisay maalin cada inta warqada loo qaybshaa la dhahayay Muqdisho aada Muqdisho taayardan waa laga bixinay maxaa keenay 83 xildhibaan oo gudoomiye baarlamaanku hogaaminayay iyo wasiiro kuwiga inay baydhabo inay xamarka soo degaan anoon fasaxin wasiirada iyadoon go'aan lagu qaadan siyaasi ah dawladdu meeshii degaysay u guurayso go'aan u qabo caqabada ka jiray Muqdisho caasimadda dalka ahayd in lagu heshiiyo dawladda Cabdulqaasim Salaad oo madaxweynaha ka ahaaba Muqdisho la keenay waxa ku dhacna waa ogeey marka taxadiran ka qabay anoo Muqdisho ku dhashay kuna barbaaray waxna ku bartay inayna igu dhicin dawladda Cabdulqaasim sidii loola dhaqmo inaan nolol dhowr canjalado aan daawaday waxa ka mid ahaa waxyaabaha guusha aad gaartay adigan aad xaqiijisay in filla Soomaaliya aad keenteen Abi Cabdullaahi Yuusuf dawladii kadib burburkii xukuumadda dhexe dawlad Soomaaliyeed dhanka kale waxa jira oo aad tiri eedeema wax u deenaya shacabka waxa laga yaabaa in xukuumadda marka la xasuusto wadan ra'iisul wasaare la soo xasuusto duulaanka Itoobiya iyo faragelinta Soomaaliya ay ku sameysay oo xukuumadda si gaar ah loogu eeday fursada ii tahay inaan ka jawaabo su'aashan dawladda Itoobiya waxay ka mid tahay dawladaha igad ay waliba shirkadoodu u ahayd oo caalamku ku heshiiyay dawladda Soomaaliyeed inay garbaha qabtaan ee dhisaan ee awoodayaan dawladda Itoobiya ciidankeedu dalkan inuu soo galo sharciye ku timid ee kuma iman Cali Maxamed Geedi markaas barnaamij la yiraahdo National Stabilization Plan qorshaha xasilinta qaranka ayaa baarlamaanka Soomaaliyeed baydhabo ku ansixiyay waliba aqlabiyadu ku ansixiyay 70 iyo dhowr xubnood ee diiday waxa xasuusta barnaamijkaas horta Itoobiya keenay Cali Maxamed Geedi ma keenay Cabdullaahi Yuusuf ma keenay waxa keenay sharci gurigaagu hadduu gubanayo adiga
qofta dariska kulaha waa inay gurigaaga wax ka dimayso haddii kale dabkaa gaaraya soo ma Ethiopia dawlad dariskeeda ha holcayso oo dhibaato ka taagnay waxay ka mid ahayd iyada iyo Kenya iyo Djibouti dawladaha nagu wareegsan oo la rabay kulligood inay ka qayb galaan waana loo ogolaa Ethiopia waa soo bilowday shaqadii waagaa la bilaabayna waa tan hadda socoto Kenya joogto Djibouti joogo Uganda joogto adduunka oo dhan isugu yimid wax ka duwan oo Cali Maxamed Geedi xukuumaddiisa sameeyaan ma jiraan dawlad laakiin dhibaatada ay ka geysatay Muqdisho Ethiopia oo aan ogeyn iyo taangiyadii iyo madaafiicdii lagu garaacay xamar waqtigaas aad ra'iisul wasaare ka ahaa qaladaadkaasi waxay inaad gacanta qabato lagula xisaabtamo waliba lagu maxkamadeeyo taliyaasha ciidamada Ethiopia doorkaas maxaa u qaadan adigay kula tahay aan u maleynayaa maxaakimta aan dagaalamayno oo xukunka isku hayna kitaab ma weydin xukun doonay ahay magaalada Khartoum ayaan 3 shir la fariisanay inay dawladda qaybtooda ka qaataan heshiiska markaan saxnana inta soo noqon ay dagaal qaadaan ee gobol qabsanay waxay soo ururiyeen canaasiir argagixisaha caalamiga Soomaali ahayn ayaa kamid ahaa maxaakimta kuwa la diriraya anaga iidaale dhowrka kuna lagu laayay oo dagaalka galay ajnabi u badnaa dawladda Ethiopia ciidamo dadkii mucaaradkeeda ahay ay soo qorteen oo kamid ahay waxa dagaalamay marka adiga adawgaagu meesha kuugu imaan lahayn aad ugu tagto laakiin waa magaalada wax lagu dagaalamaya mudan in lagu dagaalamo waxa keenay dadkii adawga shisheeyay dalkan keenay ee yiri maxaakim waay ayaa keenay ee haddii Soomaali aan nahay Ethiopia ma timaadeen adawna ma yimaadeen waxay ka yimaadeen Afghanistan waxay ka yimaadeen dalal kale waxa laga keenay adaw Ethiopia waxa laga keenay kuwa dariska marka inaan dawlad difaaco aniga qof aan ka ugu turay ama anigu heybadiisana ma jiro qarankan u dhaartay waana ful waxa rikoorka kugu jira inaad tiri genocide ama xasuuq kama dhicin magaalada Muqdisho ma ku celinaysaa genocide waxa la yiraahdaa ama massacre waxa la yiraahdaa dad inta meel lagu soo ururshay basiin lagu shubay ee la gubay ama rasaas lagu dilay maya soo adiga saartay iga dhigan waxay Muqdisho ka dhacay dagaal ah oo hay'adaha caalamiga qaar ay qireen inay tahay xasuuq ma ahayn dagaal ay ahayn anigu xasuuq ma aaminsan laakiin baaritaan la sameeyay hay'ada caalami ah sidaa bay qirayaan yaa way hay'adaha caalamiga ah qirayaan ku xil saaran inay baaraan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha aniga ma rabo inaan ka jawaabo Soomaali fidna abuura ee information iyo report u qora kuwa aad sheegayso laakiin Soomaaliya guud ahaan xasuuq kama dhicin dagaal ka dhacay qodob kale rabo inaan kugu kabo dawladda Sheekh Shariif markay timid horta hal shay inaan fasiro waa loo baahan ciidamada Ethiopia ciidamo Soomaaliyeed ay la falgalayeen magaaladan Muqdishona xaafad kastay joogeen marka igama dhaadhici kartay adiga iyo cid kaleba in madaafiic lagu sayrinayo Muqdisho laana ciidamada jooga dhulka dawladda Sheekh Shariif markay timaday madaafiicda Villa Soomaaliya inta la kor saaray laga ridayo marqaatiga ay u baahan tahay Muqdisho in ciidamada Ethiopia ay duqeeyeen waliba BM ku duqeeyeen maxay tahay BM ulguma duqeeyeen soo xaqiijina laga rabaa adiga laga rabaa waan joogay dad joogtay xaqiijin ada laga rabaa dagaala ka dhacay waa madaafiic la isku ridayay muqaawamadii waa nagu ridaysay muqaawamadii maan alqaacida noqon inta badan muqaawamadii maan argagixiso wada noqon inta badan kuwa siyaasadda raba waa kuwa dawladda galay kuwa kalena waa kuwa ilaahay hadda waa dood kale muqaawamada inay argagixiso ahayd iyo alqaacida ahayd laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in muqaawamada dadka xamar oo is abaabulay oo tacadiyada Ethiopia ka hortagay ay ahaayeen soo fikirkaas ada aaminsan iyo in kula mid ah ciidamada Ethiopia ciidamo sharci ku yimid ay ahaayeen waxaan ka hadlayaa fikirkayga ma ahan su'aashan ee waa aragtida dadweynaha hadlaya mid qarannimo waay dawladan difaacanayay aan u dhaartay iyo dal iyo dad ciidamada Ethiopia horta ma fahamtay ma ogoshahay in sharci ku yimaadaan baarlamaanka Soomaaliya aduu ogosha ma maqash laakiin in xarga loo deeyay meesha eedda ay ka timaado oo hadda la leeyahay xukuumadda carigeedina waxay ahayd inay daba qabato waxay ahayd la xisaabtan iyo dabagal go'aankaasi baarlamaaniga ah lama sameeynin waa halkaas ya yiriyo cadeemidaas waa eedeymaha loo soo jeeday xukuumaddaada lana helo eedeymo iyo xukun iyo dembi waa laba moogta waa la eeday karaa waa ku faasaliya wax kasta la igu eeday laakiin waxaanan aqbalayn ciidamo shacbi nadiif oo Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga alla xasuuqo BM lagu garaa dagaal madaafiica la isku garaacayay ciidamada dawladda in misaa ku dhimatay in misaa sarkaal in misaa askar Soomaaliya ku dhimatay ku dar Ethiopianka waa la isdilay dagaal
هكلح لح مركز ما مقام كلام هو هذينا هايدين مسؤولية سيالها سكولا مسؤولية ده وحالة هاي عدة دجال صومالي إني كأباب وشكش رئيس أو يرتي أنا هدي هل كأنفردية ربط إن يقود الشو مشهد جوكتان كو معنا سيدا صار أنا ذنب كويه دولة دي يقدم بيه مرك شيخ شريف شيخ محمد مالن كله دورت صلاة أدي سو متجنو يا شركة مدوق أفريقيا عيدا ما إثيوبيا ما إيمانو دولة حسن شيخ مجوجنو صاحب لا ما هينو حد مجوجانو أي علي محمد جدي عبد الله يوسف لوح حقنا مرك شركة خرطوم وصو هذا القاضي أيان سؤال كويدين يا فرصة الصومالية الصومالي شركة سي لفنبر يوعها وحور فريستي إرجمة تليسي حكومة ده إرجمة تليسي محكمة لها وسقوط جاي خرطوم والاسم رواية شركة وفش المي مطبع إن لك حكومة ده ولبا حفيز كاجر رئيس الوزراء سببها شركة سي وقولي سنواي ولها حفيز كاجر عيلها هي بروباغندا ذاتك الله بريك متها هي شركة هرتا مدحوينه هي رئيس الوزراء هي رئيس البرلمان قرن كان قايب لنا لوجر سراكيل يريران لو soo diray maxaakim tarigi hogaaminayna ma iman markaas gadaal laga dhahay hayilna kaasi ka hayilna maca dalika heshiisan saxiixin hii koobaad markaan heshiiska saxiixnay waa soo noqonay nimankii magax xamar ay yimaadeen weerar la qaadada la laayay jawhar la qabsaday waxa la yiri shacbiga noo yeertay qaramada midoobay iyo jaamacadda carabtan la hadla waxaan ku yiraahday heshiiska aw raal ahaba leeyahay hadana markale la abaabulay shirkii labaadaan tagna hadana shirkii labaadaan hadana heshiis saxiixnay hadana wahiirana lagu alla weerar iyo galguud oo leeyahay shacbiga noo yeertay annagana shacbiga noo yeertay marka inaan xamarnay maadaama madaxfiis kuna ilaan bari wala diiday iyo heshiis marka borobaganka cali maxamed geedi xukuumaddiisa ka cagajiida maxaa igeynayo heshiis u galayaan mar walba wasiirada inta tagaa saxiix heshiiska waa fursad hadiiba sida aad tilmaantay borobagando suuqa kugu jirta ay tahay cali maxamed geedi borobagandada aad tilmaantay waxay ahayd waxa uu diidanaa in power sharing maadaama meesha uu ka soo baxayo xukuumaddii ku milgaarka ahayd ama dawladdii ku milgaarka ahayd iyo maxkamadaha dhalasha ahaan cidda uu ka dhashay cali maxamed geedi dhanka kale ay ka imaanayso sheekh shariif ahaa ayuu cali go'aankaasi u qaatay sida waxaa idin sheegay nimankii dadka noo yeerta dhahay inta dagaal qaada ayaa waxaa idin sheegay sheekh shariif sheekh axmed adeeradiis iyo walaalihiisaan intuu diray ayaa ay xukuumadda wuxuu ka rabaa aan siino markhaati leedahay hadda dadkii waa joogaan haye haddii Soomaali ku badbaadayso anoo ra'iisul wasaaraha cid iga adkaatay ina jirin maxaa isu casileeyay uga tagay dalka baarlamaanka anoo aqlabiyad ku haysta ayaan ogaaday haddii aan ku kala jabno aniga iyo madaxweyne Cabdullaahi sallallahu alayhi wa sallam baarlamaanka in dawladdu burburayso inayna dawladdu burburin ayna ayadsan Soomaaliya ayaan shaqadu uga tagay haddii la idhi lahay heshiisku wuxuu ku jira kursigaaga awoodaan u lahaa geesinimada u lahaa inaan raado hadiiba Soomaaliya ay heshiinayso aan xabad dambe dhacayn kursiga waa dhiibay inay raado awoodaan u lahaa waana yaa madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariisto waad isqabateen waa iscasishay maxaa isku qabateen isma qaban aniga Cabdullaahi Yuusuf weligan ma dirin waxaa laga shaqeeyay in dawladdu burburto dawladdu inay burburtaa laga shaqeeyay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed salkana ku haya ajnabi Soomaali aan u ogoleen xasilooni iyo dawladnimo ayaa ka shaqeynayay in la sakeeno warka موشينا لدياشة برلمان كلاجي إن علي محمد جيدي وياي عقبضة صومالي كدقيلا شيء كدم بي صومالي وديكيس والنقا مركان أرك حالد إنه خطر كوجرت ودلكو إنه بربورية دولة بربورتا هدا صومالي هذه دولة بربورتا صومالي ضم إلا كم يقولت هذه خطر واحد يي بربورنا إيجا هذي لأن رب بدنا كصومرني عد إيجا عيري سمجرين عد إيجا أتكاد مجرين برلمان عبد الله يوسف ما ديرين أنيقا لكن سياسي بانها أقويانا وحان فهمي إن للربو إني وحو بربنا شرفانا كلها مانتا إنا أنت كرسي قدقو أنك تقو أي صعود اللي اسبب بدلو مانتا أي دولة جرت الصومالية هذا السيداد واركتها دولة نمو الصومالية هي سيدة سياسة دو صعود أرتا دولة حن دولة الآن يدان تالي هذا دولة دمانتا جرتا waxay dhaxashay dhibaatooyin dawladii ka horeeyay ay xakamay waayeen dawladuna sideedaba dhibay ka samaysantaa waa dhib qabtaa aniga cali maxamed geedi ahaan dad baa waxay rabaan iga fasira dawladda oo difaaca dawladda mushaar siisa dawlad mushaar siisa ma jirto
dawlad aan difaaca ma jirto aniga farmaajo iyo xasan cali khayre saaxiibaan laha waa macquul waana aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan ku qanacsanayn habka siyaasaddu u socotay u shaqaynayso laakiin niman waqti la siiyo ee waqtigooda socdo oo berita la bedeli karaan u arkaaye in isbaaro loo dhigo iyo caqabad la burburiyo wax taa waa mid aanu baan diidanahay dawladda xasan sheekh oo dhaliilaysa waay maxaad waqti u siin weysay meesha hadda aad ka leedahay tan dawladda xasan sheekh waxaa isku qabanay nidaamka federaalka ah ay ku dhaartay inay diidayeen jubbaland isku qaban nidaamka federaalka ayay diidayeen waana ii sheegeen oo qaar ka mid ah waxay igu yiraahdeen waxaan madax ku noqonnay dastuur anagoo aanan diyaarsan waxaan madax ku noqonnay baarlamaan anagoo aanan xulan baarlamaankan waxaa xulay sheekh shariif maamulkiisa uma iyo xasan sheekh nimanka yidhi baarlamaan anagoo aanan xulanaan madax ku noqonnay dastuur anagoo aanan diyaarsanaanan madax ku nahay nimanka yidhi federaalkay diidayeen wax kale nidaamkii dowladnimada ee madaxweyne xasan sheekh intaasaa ku diidanayd aakhirkan waa ka heshiiseen hadda maxaad ku diidan tahay xukuumadda farmaajo farmaajo xukuumaddiisa inaan diidanahay xaggee ka keenta horta diidan tahay ma kuma oran diisa dawladda farmaajo fiiri dhaliilo waa leedahay haye maxaa ka mid dhaliilaha waxaa ka mid a in ummaddii wada qaylinayso ee dhib la sheeganayo dhaliilaha waxaa ka mid noqon kara dowlad goboleedyo iyo dowladdii federaalka ahayd oo heshiisayn dhaliilaha waxaa ka mid a muxuu ahay magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ka jira ee aan la fiirinayn amniga maxay u tari kartaa la leeyahay magaalada la xiray waxbaa ka jira anigu uma qariyo asaga iyo ra'iisul wasaaraha ya waa la wadaagaa anigu mana u qariyo waxaan idhahdaa waxaan waa qalad hala saxo maxay ku yiraahdeen inay saxaan ay ballan qaadayaan inay saxaan iyagaa laga rabaa waa fahamtoo ma marka aniga dawladda Soomaaliyeed inay jirtaan rabaa ee isbedelaan dadku laakiin cadkaano wala ama ku cunay ama ku caade ku ciidee ma aaminsan waxaa la rabaa in la siiyo chance xasan sheekh 6 bilood ay ahayd markaan aan murmayno Jubbaland isku hayna Jubbaland aakhir dawlad goboleed noqotay waa raacay asaga ogolaaday gabagabadii su'aasha talada qaranka Soomaaliya ummadda aad la wadaagayso ugu dambeyntii maxay tahay mudane professor Ali Maxamed Geedi anaga horta isma moogin nimanka dalka madaxda ka ah oo wixii tala waasiinaa waqtigu gabagaba inuu joogo waa waqtigan kulligiin adduunka dhan waa Soomaaliya waa ogtahay meeshii la aadi lahayd dawladda laga rabo dawladda federaalka ah laga rabaa halka siyaasaddu aadayso doorasho ayaan ilaahay hadda rabnaa anagu doorashay ballan qaaday qof iyo cod waa looga fadhiyaa dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha halkaasaan taaganahay anagu hadday dhici weyso ka waran oo sida leh hadday dhici weyso oo duruufu keento miiskay taladu saaran tahay saamilada siyaasadda oo ka kooban dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ay miiska u saaran tahay duruufta ka cabsanayso inay doorasho dhici weyso maxay tahay waxa kamid ah coronavirus iyo dhibaatada dalka ku haya iyo dadka Soomaaliyeed waxa kamid ah muxuu ahay xasaradaha dabiiciga ah ee dalka ka jira ay kamid yihiin waxa qarda ka dhacay baardheer waxa ka dhacay duufaan fatahaadaha webiyada oo Hiiraan ay ka bilaabanayaan shabeelayaasha waxay kamid yihiin caqabadaha dabiiciga ah inta in la eegay saameeyeen ka baqayeen taas doorasho dhici weyso الله ونحرسه عبدالرشيد علي شرماكور رئيس الوزراء oo doorasho miiska saaran tahay Itoobiya Soomaaliya isku dhacay 64 markaas la yiraahdo ra'iisul wasaare dagaalna waad ku jirtaa doorashana waa ku hortaa la heesay isugu hirgelinaysa markaas uu gacanna waa ku dagaalamayna gacanna waa ku doorashan ku galina aniga ma aaminsanahay waxaan hadda qaabab badan jira oo doorasho lagu gali karo iyadoo dhibaatooyin jiraan anigu midowga Afrikaan ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrika oo dhibaatooyinkan oo kale ay ka jiraan ayaan joog ka ahaa muxuu ahay hababkay uga dabaasheen marka nidaamyo dawlad doorasho ku dhici karto waa la helayaa hadii daacad laga yahay aad ma xasantahay mudane ra'iisul wasaare inta ayaan daawada ku soo gabagabeynaya waraysigan oo dalsan TV ay ku yeelatay Muqdisho ra'iisul wasaare xukuumadda ku meel gaarka ahaa professor Ali Maxamed Geedi iminkana ah gudoomiyaha jaamacadda akademiyadda qaramada midoobay Soomaaliya sidoo kalena ah aasaasaha idin waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeenan sida iyo nabadgelyo